حبي وصام من الحياء كلامي فالله يبلغكم بما أحوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن dhageystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad inoo dhageysanaysaan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee laga socotaan haatanna ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo maanta si toos ah inaga imaanaya stuudiyaha labaad idaacadda ay ku leedahay magaalada Tangaarisa. kulan wacana wanaagsan mar kale baraqo wanaagsan barnaamij aan ku eegayno arrimaha ku saabsan dhanka musiibooyinka iyo waliba kahortaga iyo yareynta dhanka musiibooyinka ayaan barnaamij ku eegaynaa. barnaamijkaasi oo ay maalgelisay hay-adda socdaalka adduunka ee loo soo gaabsho IOM ayadoona kaashanayso khuburo kale oo arrimahaasi kala shaqeeya. barnaamijka wuxuu si toos inaga imaanaya magaalada Gaarisa anigoo Bishaar Axmed Dhaqane ayaana la socodsiinaya. waa barqanimo Arbaca taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha saddexaad ee Maarso sanadkuna waa 2025. kulan wacan wanaagsan mar kale. barnaamijkan oo hal saac ku jiri doona hawada ayaa waxaa markaasi laga qayb qaadan doona saaxiibo ka socda dhanka hay'adda isla markaana halkan ku mathalaya maanta ana oga hadli doona musiibooyinkii waliba sida looga hortago ama loo yareeyo iyo maareyntooda. barnaamijka waxaa marti inoogu ah maxamed cusmaan oo ah agaasimaha fulinta guddiga dhexdhexaadinta waa markaasi Gaarisa iyo sidoo kale xubin ka tirsan shabakada caalamiga ah ee yareynta iyo maareynta musiibooyinka ayaa marti inoogu ah. sidoo kale waxaa halkan inoo lagu sugan oo barnaamijka asaguna ayna laga qayb qaadan doona kana socda dhanka hay-adda oo asaguna halkan inala jooga waa Cusmaan Aadan oo asaguna ah sarkaal hay-adda Lanqeyrta Cas loo soo gaabsho ama loo yaqaano reer Koros asagu u jooga ama u maareeyo gobolka Waqooyi Bari. kulan wacan wanaagsan mar kale waxaan soo dhaweynayaa saaxiibada oo barnaamijka ayna laga qayb qaadan doona waa Maxamed Cusmaan iyo sidoo kale Aadan Cusmaan oo ayaguna barnaamijka qayb maanta ka ah. soo dhawow marka hore waxaan ku bilaabayaa Aadan Cusmaan. Aadan soo dhawow inuu bilowdo barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay iyo waxyaabaha waxaana sharxado dhageystayaasha wada laga soo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على بشار وعنده عثمان آدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين. أما بعد ولا ريال وصل بشار نوشي أرنتان أيام 6 وكذا جلينا أريمهم أو كسابسن أريمهم مصيبوين ك أو مجالد إجارسية وقوي بريء ودلبو أدو ساميان أو لانت أيدهان platform for disaster displacement ولان تلابقات كذا أي تهيئ تشقيان IOM قوض أيدهان تلابقات كانوا وحي كشقيان إني يريان سي الله بو دادوينها مركي أي بعجلين وديبان أريمها مصيبوين كوكوسابسن مركي هذا التوس عن برنامج كوسي قالوا IOM International Organization of Migration أو تشقيان قوضنا أيدهان platform for disaster displacements خاصة maalgeliyaan mise ka shaqeeyaan sida ay ku yareen lahayn arrimahan oo musiibooyinka ku saabsan dadweynaha oo war loo dhiibayo arrimahaas musiibooyinka intay weli dhicin markii ay dhacaan kadibna si degdeg ah si loogu gaari lahaa oo maartay caawimaad loogu sameyn lahaa. marka khaasatan ayaga waxay ku takhasuseen arrimaha ku saabsan guri dhismada مسحافرات سلوا هبينها وهي laan kastaba dawladayga soo bilaabaysa arintan Lanqeyrta Cas IOM kulli dadka waxay ka wada shaqeeyaan sid arrimahaas markay dhacaan si dadka lagu caawin lahaa. qoladan qaasatan waxay u xilsaaran yihiin arrimaha oo guri dhismada iyo waxaas oo shelter ku magac dheer. waata aad buu mahadsan yahay Aadan Cusmaan ayuu ahaa oo dhanka hay'adda Lanqeyrta Cas asagu
u joogo gobolka waqooyi bari sarkaal sare oo hay-adana u qaabilsan gobolka waqooyi bari ah. waxaan aadayaa dhanka maxamed cusmaan. maxamed soo dhawow. haddii aan su-aasha ugu hore ku weydiiyo, haddii aan ku bilaawno diyaargarowga ama inta badan arrimahan musiibooyinka waa maqalnaa, sidee loogu diyaargaroobaa, sidee wax looga qabtaa, sidee la rabaa in la iskugu diyaariyo marka hore intaysan dhicin? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد عثمان وكسعد هيدا متقنا درس ميديشن كانسل هيدا متقنا حلسو أرمها قلافاتك مركا بروجرام كان هرتا وحسبوت جريسا متقنا هيدا لما تقنا سعودالك وآي أو إم كم مقعدر يو متقنا PDD oo idana mataqaana arimaha mataqaana musiibooyinka arimaha mataqaana si loo yareey lahay ama loo hortagi lahay idana ka shaqeyso oo platform magaceeda kalena oo la dhaho GNDR na idana waxa waaye waa mataqaana dalad oo caalamka ka jirto oo mataqaana isu imaato arimaha mataqaana hay'adaha mataqaana dawliga ahaan oo ka shaqeeyaan arimaha mataqaana musiibooyinka iyo mataqaana duufaanka iyo mataqaana daladka markay dhacaan iyo barakaca oo mataqaana ka shaqeeyaan. marka su-aashaad i weydiisay marka qaabkee looga hortagaa ama mataqaana response waxa la dhaho ama recovery see loo sameeyaa. midda hore waxaa waaye mataqaana Kenya waxaa ka jira mataqaana platform oo loo mataqaana DRM disaster reduction management platform ka jira oo isu keenayso mataqaana waa dalad oo dawladda ah iyo hay'adaha oo ismaadaan national level no ay ka jirta, county level no ay ka jiraan disaster risk management. Garissa oo kale Garissa county waxa county government ayaa jirta, hay'adaha jiraan mataqaana Red Cross oo kale pastoral gas initiative hay'ado badan oo mataqaana ay kana mataqaana gacan ka si ayaa jiraan oo marka qorsha jira oo mataqaana plan bay yaala oo arimahan intay dhacin oo mataqaana ka turjumo. tusaale ahaan waxaa jira mataqaana waxa loo mataqaana early warning system inta musiibooyinka ay dhaceen ama duufaanka ama abaar ha noqoto ama biyo ha noqdaano waxaa jira mataqaana calaamado tusin mataqaana meteorological local department ee arrimahan ka shaqeeyaan ay kana advice galeen marka the county government oo arrimaha mataqaana roobka inuu soo dhawiyo abaar inay jiraan marka qorshaha la sameeyo qorshihiiba marka inta waxba dhacin yaa marka lagu shaqo tagaa. number 1 marka waxa waaye waa horta resource in la helo dhaqaale meel loo dhigo arrimaha intay dhaceen kadibna mataqaana planning waa in la helo ka hortag iyo mataqaana iyo sidii mataqaana loo maareyn lahaa howlahaas marka loo diyaar garoobo. wata aad baa mahadsan tahay. intaysan musiibooyinkii iyo arrimahaas aysan dhicin meelaha lagu hortagayo ama laga qabanayo sidee lagu ogaadaa? baaritaan ma la sameeyaa? allah musta'aan. waxaa jira mataqaana early warning system baa jiraan oo mid waxaa waaye bulshada intaasoo sanayso muuleed, mid waxaa jirta mataqaana oo hawada la fiirini, dabeesha la fiirini, cimilada la fiirini, mid oo mataqaana community indigenous knowledge lahaa midaas horta waa jirtaa. waxaa kala jirta department of meteorological ayaa idana jirta oo advice gareynayso dawladda national iyo county-gaba oo leedahay mataqaana roob baa soo socdaa, abaaraa soo socotaa, waxaana soo socdaa halis diyaar gareeyo. marka midda kale mataqaana radio idaacadaha idana waa laga soo jeediyaa, WhatsApp baa laga soo jeediyaa, Facebook. tusaalaha madaan ku soo qaato waxaa jira every December Garissa county waxaa ka dhacdaa mataqaana floods ka dhacdaa roobka ka sokow. marka warahan oo ku yaalan mataqaana down Kenya oo Kengen oo power station ko supply garaan biyaha markay waraha buuxsamaan waa la soo daayaa, overflow way sameeyaan. so every December waxaad aragtaa marka ayadoo notice la bixin dadkii loo sheegin ayaa iska soo daayay biyo fara badan. dadkii say joogeen habeenimo biyo soo galayn, dadkii beeraleydii marka barakac baa ku dhacay. marka informationka marka waxaa la rabaa marka inuu ka imaado dawladda Kenya Red Cross idana waxa waaye qaraar la siiyo idana kaalin weyn bay ay ka ciyaaraan allaadka markuu imaado early warning iyo mataqaana digniin SMS bay bixiyaan. marka meelahaas informationka laga helaa so that mataqaana community-ga sifa ay u minimize gareeyaan oo u yarayaan mataqaana musiibooyinka biyaha mataqaana iyo saameynta ay keen lahayn. bishaar waa mahadsantahay. sidoo Hanad sheegay
midda koowaad horta arrimaha intay weli dhicin dowladda hoose mise dowladda sare dowladda hoose hay-adaha kulli waxay sameynaya waxa la dhahayo sahan camal ahaan baa la sameynaya waa in la ogaado meelaha horta dhibaatooyinkan ay ka dhacaan meelihii baa la ogaanayaa magacyahooda lasoo qorayaa inta qof ee ku nool inta guri intaas kulli waa la ogaanayaa meesha alla meesha haddii lacala daadka ay noqoto meesha alla meesha waqooyi bari daad ka dhacayo webiga maraayo mise lagaha ka dhacayo kulli waa la mahadgaraynaya kadib haddana waxaa la raadinayaa roobka qiyaasta uu leeyahay goosoada sheeg walaalkay maxamed oo kale Kenya Meteorological Department waxay bixinaysaa digniin oo leedahay roob qiyaas intan baa la helayaa waa maraysi meel kasta waa laga dhaqdaa so markay roobka sheegtay marka waxaad isku diyaarinaysaa mise abaar baad isku diyaarin mise daad inuu dhici doono labada mid baad isku diyaarinaysaa so abaarta xaggeeda marka la dhaho dadka un bay saameynaysaa laakiin deegaanka naftiisa abaarta kale un waxaa jirta abaarta u badan tahay oo dad degan yahay iyo dhul oo daadka uu badan yahay dad degan waxaas kulli waa laisku aruurinayaa qoraal baa loo kala sameynaya marka warshayaasha intay weli dhicin kadib markii wacgelin baa la sameynayaa waa in wax baa la hagaajinayaa qoraal baa la sameynayaa haddii laisku diyaarinayaa daad dadkii meelaha daadka ku jireen wacgelin baa loo sameynayaa waa loo sheegayaa waqtigaasa laga baxo meesha halkan in laga guuraa la rabaa oo meel loo diyaaray ay ku guuraan waqtiyaal badan intaan soo marnay waxaa dhacday digniinta in la bixiyey dadka inay meeli iskaga jiraan heer waxay gaarta daadka markuu imaado dadku waxaad la kulmaysaa dad baa telefon baa lagu soo diraa qoor baa lagu soo diray waxaa lagu leeyahay aleeraha dad baa meesha ku xiran beerihii baa biyo qaadeen injinihii way tageen dad baa meesha ku xiran haddana responsekii mise tallaabaqaadkii loo sameynayo qarashkana u baahan yahay isagan marka laba shay oo dowladda xaggeeda macal hay-adaha dowladda ku xiran ay ka shaqeeyaan waxaa jirta aldo contingency plan planka wuxuu leeyahay arrimooyin oo qasnaayin haddii fatahaadka hadduu dhacayo maxaa laga qabanaya abaarta hadday tahay maxaa laga qabanaya meelaha dadka isku khilaafaan ay ka dhacaan hadday jirto maxaa laga qabanaya kadib haddii arrimihii ay dhacaan waayo arrimaha musiibooyinka lama koobi karo wax la joojin karan ma aha laakiin annaga waxaa nala haboon inaan la dhaqana marka nidaam intay weli dhicin ka hortag loo sameynaya wuu jira lacala haduuba oo saameyn shaygii uu keenana nidaam loola dhaqan baa jirtaa marka shayga muhiimka waxaa weye inuu degdeg wax kastaba laga sameeyo tallaabaqaad haddaad sameynayso shayga markuu dhaco tallaabaqaad haddaad sameynayso si degdeg in loo sameeyo intii weli dhicin haddaad ka hortag sameynaysana si degdeg baad u sameynaysaa shayga muhiimka marka waxaa weeye degdegnimadii iyo harakadii arrinta si looga qayb qaadan lahaa inay meesha ay si fiican loo soo saaraa ayaa muhiim ah waa tahay degdeg inkii loo sameynayo arrintan oo maareynteeda iyo sidii khatarteeda looga hortegayo la sameynayo dadka ayaga markaas arrimahan loo sheegaya ee meesha degan may qaataan inta badan waxyaalaha noocaas markii la sameeyo mase la dhahayo meeshan waana iskaga guurtaan mase ka baxdaan mase weli way ku degnaadaan halka way iska degnaadaan hadda waa si waagii hore dadka way iskaga degnaan jireen oo dadka wax kale iska aaminsan yihiin shayaal badan baa marka soo mareen oo toos ugu dhaceen oo ay dareemin baa jirtaa marka waqtiyaashan dambe warkii meel fog buu gaaray tallaabaqaadkii la sameeyey iyo wixii dadka ku dhacay ayaa dareemeen marka hadalka way qaataan aad bay taxadar bay aad u sameeyaan dadweynaha khaasatan dadka weliba jiinkiisa ku jiraan dadka beeraley oo xoolaha meesha ku dhaqdaan dadka beeraleyda dadka meelaha oo biyo mareenta fadhiyaan waqtiga kuleelka galaan daad camal baa hadda ka soo qaadanayna waqtiga kuleelka meelaha qabow waa la raadsanaya soomaad garan marka roobabka saadaalaha marka la bixiyo roobabka ay soo dhawaadaanna marka way ka soo baxayiin waayo arrimooyin intaasoo jeer soo mareen baa jirta intaasoo qofoo xisaab oo la garanaa ku dhinteen baa jiraan intaasoo xooloo ku baabiceen baa jirta intaasoo qofoo cayr ku noqdeen baa arrinta jirta soo horaan waxay ahaan jirtay war allahu aclam wuxuu ilaahay keenan baa lagu dhiciyay naga daa laakiin beryahan dambe dadkii waxaad dareemaysaa inay fahmeen arrintii oo maaragtay tallaabaqaadka ay sameeyaan waa tahay aad baad mahadsan tahay dhanka waxaan aadayaa maxamed cusmaan GNDR shabakada caalamiga door intee leeg ay ka qaadataa arrimahan oo ay ka ciyaartaa sidii hoos loogu dhigi lahaa maasha allah GNDR waa global network civil society disaster reduction baa la dhahaa waa hay-ad mataqaanaa weyn oo caalami ah oo waa global caalamka kule ay ka shaqaysaa ilaa mataqaanaa 160 mataqaanaa wadan bay ka shaqaysaa
howlaheeda ugu weyn mataqaana ay ka shaqeeyaan waxaa waaye mataqaana policy advice mataqaana dowladaha ay ka mataqaana ka caawiyaan mataqaana ama ay sharci u hagaajiyaan si loo hortegi lahay mataqaana maxaa la dhihi jiray qatarada mataqaana oo abaarada mataqaana ama mataqaana maxaa la dhihi jiray duufaanada sida loogu hortegi lahay badanaan waxay sameeyaan capacity building trainings tababar ayay mataqaana u sameeyaan hay-adaha iyo dowladda ay u sameeyaan tusaale sanadka markuu ay 2023 waxay train gareen mataqaana north eastern iyo eastern region iyo coast ayay mataqaana hay-ada badan ka tababar ay u sameeyeen si looga hortegi lahay ama loo yareyn lahay qatarta mataqaana oo ximilada isbedelka ximilada iyo mataqaana qatarta mataqaana ka imaan karto tusaale ahaan reer guurayga markuu abaarada dhacaano xoolaha way barakacaan Soomaaliya bay ka dhacaan wadamo badan bay ka dhacaan waxa dhacaa mataqaana geedi fara badan geedigaas marka wuxuu keenaa mataqaana qalab fara badan buu keenay xoolaha baa dhamaanayn tusaale haddaan qaadano 2022 abaar xun baa ka dhacday wadanka ka dhacday oo gaar ahaan 4 county saameysay xoolaha ka imaadeen Wajir iyo Mandera ayaa iskugu imaadeen Garissa County iyo Tana River xoolo badan way dhamaadeen nafka xoolaha la geli jiray mataqaana 60 kun 70 kun ama 50 ugu yaraan ayaa markii dambe mataqaana 5 kun 3 kun lagu gaday way xoolaha way dhamaanayaan biyo uma haysid baadna uma haysid marka hay'adan badana marka waxay sameeysaa dawladaha ayay ka tababar siiyaan policyga mataqaana sharcigana si mataqaana oo lagu hortagi lahay arrimaha disastergana tababar bay ka siiyaan waa tahay dadka ayagu arrimahan inta badan ay ku dhacaan si reer guuraago kale tababar ma la siiyaa badana waxay la dhiilgareeyaan ay tababaraan ay ka civil society hay'adaha dawliga ah oo mataqaana arrimaha bulshada mataqaana u taagan ay tababar siiyaan oo community based organization marka toos laakiin bulshada uma tababaraan laakiin dawladda iyo mataqaana hay'adaha dawliga ah yay tababaraan hay'adaha dawliga ah community based organization dhow ay marka bulshada la shaqeynay ay tababarka siinaysaa marka waa tahay aad baad mahadsan tahay meel walba joogtaan iyo si walba aad inoola jaan qaadaysaan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari la socotaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno ka hortagga musiibooyinka iyo markaasi yareynta qatarada ka imaan karo ama qatarta markaasi ka dhalan karto ayaan ku guda jirnaa barnaamijkan waxaa taabagelinaysa hay'adda socdaalka adduunka ee loo soo gaabsho IOM wuxuuna si toos ah barnaamijkan iga imaanaya stuudiyaha labaad idaacadda ee ku leedahay magaalada tan Garissa barqa wacan wanaagsan ayaan hawada inaga leenahay meel walba aad joogtaan ثم الثبات لحين حسن ختامي وهذا كل وعن ونكسن مركله مال walba joogtaan si walba aad inoola jaan qaadaysaan istaafim codka gobolka Waqooyi Bari aan socotaan barnaamijkii ay taabagelisay hay'adda IOM iyo sidoo kale khubaro ay kaashanaysa ayaan ku guda jirnaa ayaduna barnaamijka ay marti inoogu yihiin Maxamed Cusmaan iyo sidoo kale Aadan Cusmaan oo ka kala socda agaasimaha fulinta guddiga isdhexgalka ama markaasi dhexdhexaadinta Garissa iyo xubin ka tirsan shabakada caalamiga ah ee yareynta iyo maareynta musiibooyinka bariga Afrika markaasi loo soo gaabsho GNDR sidoo kale barnaamijka waxaa asaguna in lagu sugan Aadan Cusmaan oo sarkaal sare oo ka socda hay'adda Lanqeyrta Cas una qaabilsan gobolka Waqooyi Bari waxaan aadaynaa Aadan Cusmaan Aadan arrimaha markay dhacaan tilaabooyinka la qaado ama la doonayo in la qaado maxaa kamid ah bismillah arrimahan horta markay dhacaan waxaa weeye waqti kastaba way dhacaan oo arrimaha abaarooyinka kamid ee daadadka kamid ee dagaalka wax kastoo musiibooyinka way jiraan tilaabaqaadka la sameeyo horta madaxa waxaa ka noqonaya dawladda waayo shacabka dadweynaha dawladda ayaa iskale wixii kale oo kabaya waxaa weeye maaragtay dawladda nidaamka ay meesha dhigatay unbay kabaysaa hay-adaha kamid marka midda koowaad horta waa in arrintii dawladda lagu boorijiya arrintii inay kusoo tallaabo qaadaan ay maaragtay soo saaraan dhibaatooyinka dhacayeen iyo waxa kullu horaana waan kasii hadalnay
كورتج باجرا لكن أنتوا وين دعيسا وإذا ما كنت لاعب قاعد الله سمعنا وحاول وإلا هلو لان دولة كمية هذا county government of Garissa أكل وحاجة تقريبا أي نحن department of a special program أيها وحلو ترجعني إني ما تكون أمريكا أحدا ما كل دعاية دولة وحي قعنتي هذا كبطو وحاول يهيدها ديار قويين إني دولة دعاوي يعني لكن الشيء هو كوا هرت دولة كسر الله so special programs وحاجة واحد لها county steering group والله عمل له ترجعني ما تعرف ما عمل له فلقية وبحلا قوام هاي بحس دق لوص منها organizationها أما هيدها UN bodies هالنقدان non governmental organization هالنقدان CPOs هالنقدان كل وحي كقيب قاتن ماشي له county steering group وعمل فورم له ترجعني يعني ما لا يحضر so meelaha salon discuss kareynaya markii taa laga soo baxay kadib hadda waxaa jirta waxa disaster committee oo county every county level ilaa Mandera oo jeegars meel kasta way ka jirtaa disaster committee marka qaas ahaan bay u sii fariisanaysaa oo wax talaabo qaad iyo yaa qabanaya shaqo fulani haday noqoto raashin in la bixiyo oo dawladda raashin ay keento ka soo qaad hay'ad la qaad taasoo kale waxa laga yaabaa in la dhaho ay IOM oo isku jiraan waxa laga yaabaa inaga bixiyo maacunti kale oo dadka lagu caawinayo hay'adahan hadda GNRG oo kale waxa laga yaabaa in la dhaho dadka inaga tababar u sameeya habka isku maamul lahayn laantan kale oo ayadana Ministry of Health عمل إن arrimaha caafimaadka waxaas ka qayb qaato oo shaqada waa la kala qaybsanayaa markii talaabaqaadka ayda la sameeyay dadweynaha naftooda waxay u baahan yihiin dad madax oo dawladda xaggeed ka socdaan xafiiska county commissioner oo kale oo maamulku hagaajinaya wax soo sameeya chiefyaasha dadkaas ku jooga tuulo kasta meesha ka imaadeen maartay waa la shaqeynaya oo habkii lagu arrinta lagu meelgaaraan baa la sameeyaa waa tahay marka gudiyadaas kala duwan wada shaqeyntooda waa sidee والله الحمد لله رب العالمين هذا الوقت كان أنجو إنه أريماس أبي اللي صفة عم بنسويستا كورتجنا ولا جشقي أو ديار بالوي هاي لعل هدي وحي أصابة حنا ولي نظام كوجلا وهي ده وده اسمه فورميال وجلا واتساب جروس بالوجلا كوميونيكيشن كصحة كاونت كوميشنر هاي ستايلست ده ما أريماس سمينا هاي ما كتلاعبقاتي ويني ما تصدق دق سبيه ولا نوالس كهيا qof kasta oo misalaan kasta oo dawladda ee hay'adaha shaqada ay qaban hayeen si toos bay u weeyaan naftooda waa tahay hay'adda lanqeyrta cas ayada door noocay ka qaadata arrimahan lanqeyrta cas horta waa doorka u sareeya ka qaadataa waayo arrimahan bay qaasatan ku takhlustaa shayga markii wax yar dib uu u yar dhaco qolada koobaad mise degdeg hore u dhaco qolada koobaad ka qayb qaataan waa yar waayo dawladda la shaqeysaa si degdeg bayna oo la shaqeynaysaa wixii oo nusqaan oo meesha ka soo baxana dawladdu way la qaybsanaysaa waayo ayada ma aha si laamaha kale ma aha ayada waa laan oo dawladda ka xisaabsan soo wixii degdeg oo war ha noqdo mise gacan la gaarsiina ha noqdo ayada horta qaybta sare kaga jirtaa abaaraha hadday noqdaan sidii oo kale daadkii hadduu noqdo qaasatan weliba daad waayo arrimahan musiibooyinka dhacayeen musiibooyin isku diyaarin karaa jiraan iyo kuwa si degdeg ah daadka oo kale ama dagaalka oo kale markuu dhaco waa arrimo degdeg oo u baahan gargaar degdeg ah soo arrimaha oo kale la qaybtaas ayada madax hore kaga jirtaa nambarka koowaad ay ka caadaysaa laakiin shay kastoo ay samaynayso waa inay dawladda gacanta kusoo qabsato dawladda soo rigaysaa marka ayada way daba soconaysaa waa tahay hay'ada gooni ee la shaqeysa ma jiraa dawladda mooyaan way jiraan khaasatan hay'ado badan bay la shaqeysaa IOM tan baa kamid ah markii la dhaho xagga oo u xilsaaran guryaha xaggooda ama dhismadooda kale shelter ay dhahaan IOM baa u xilsaaran raashinka markii la dhaho county government way la shaqeynaysaa WFP way la shaqeynaysaa iyada arrimaha raashin ku saabsan arrimaha oo ciyaalka yaryar iyo maamooyinka oo uurka mise kuwa xamliga raashin khaasatan la siyaa jirtaa oo special food la dhaho kuwaas ayaga khaasatan UNICEF iyo kenya reerkood ayada nafteeda iyo hay'adaha la shaqeysaa ma jiraan oo arrimahaas maaragtay kala shaqeynayay waa tahay dadka musiibooyinka ay dhanka guryahoo kale markii loo dhisaayo amase guryaha ay arrintooda ay wax ka qabanayso sidee dadka lagu kala xulaa baaritaana la sameeyaa maxaa la sameeyaa midda koowaad horta waa in la ogaado meeshii shayga horena waan ka hadalnay marka hore diyaarintii horeysay shayga soo socdo ma abaar baa ma daad baa ma dagaal baa shayga la filanaya inuu dhici doono oo saadaanta laga bixiyey waa ina horta ogaato iyo meeshu ka dhacay dadka meesha ku nool horta waa register gareynaya qoraal baa loo sameynaya assessment la sameynaya qoraal baa loo sameynaya waa in xisaab
qaasatan haysto shayga wuu dhacay haddana markuu dhacay si degdeg haddana waa lagu laabanaya mar labaad qoraan labaad baa lagu celinaya boqolkiiba boqol baad qoratay meeshii wax dhib ka dhacayo laakiin shayga markuu dhacay boqolkiiba konton ayaa laga yaabaa saameynta inay gaarto kontonkii baa lasoo xirayaa waa lasoo haweenayaa meel baa la keenaya markaad saas samaynayso laaqaartaas ay samaynayso ayada kidhaxna ma samaynayso laamihii dowladda la socda special programs la socdaan oo county government ka socoto national drought management authority NDMA qolay dhahan ayagana abaaraha qaasta ku takhasusay baa jiraan oo loogu talagalay other organizations oo ayagana waxaa jiraan waddanka ku nool oo ayagana qaasta rabay ay garab u noqdaan so dadkii waa la qorayaa xisaabtaa la ogaanayaa markaa kadib dib loogu laabanaya wixii loo keeni lahaa so arrimahan oo guryaha xaggooda ku saabsan khaasatan dadka waayo waa waqti yar arrinta markay dhacday waqti yar baa dadka ugu talagalay meesha inay joogaan haddana meeshooda caadi ku laabtaan so guri oo caadi ahoo weyn maaragtay oo dhagax camal looma dhisaayo bacyaal iyo barakeetiyaal iyo gedgami iyo saabuni wax maaragta oo qofka oo maaragtay uu ku shaqaysanayo ayaa loogu talagalay in la siiyo so bacda nafteeda guriga markii loogu habeynaayo nidaam loogu habeeyaa jirta wax standard la dhiibaa jiraa guriga dadka intii bacyaal iska siiya maarata saas maaha tababar baa loo sameyn dad ayaga qaastan kamid ah ayaa la tababaraya guriga hab loogu dhisaa jirta laba bac camal baa la siinaya standard si loogu talagalay halkii qowska ahaa laba bac camal in la siiyo markii la siinaya midna kor buu saaraya midna hoos buu gashanaya maaragtay si guri ahaan arrinta ay maaragtay ugu hagaan wata arrimaha wax ku darami jira dhanka horta programkan hadda waxaa wadaan hay'adda oo socdaalka oo IOM ayadoo gacan ka helayso hay'ad la dhaho iyadana mataqaanaa UNOPS mase GNRD projectkan wuxuu ku magacaaban yahay mataqaanaa PDD platform for disaster reduction marka suwad walaalkeen noo sheegay assessment baa la sameeyaa waddanka abaar markuu ka dhaco ama duufaan uu ka dhaco disaster ay ka dhacdo hadda project wuxuu support garaynayaa 4 county ayuu Kenya ka support garaynayaa mid waa Garissa mid kale waa Kisumu iyo Homa Bay ayuu mataqaanaa hadda la support garaynayaa PDD iyo IOM ay mataqaanaa hadda dowladda Kenya iyo ay mataqaanaa 4 county ka caawinayaan shayga ugu weyn hadda sameynayaan waxa la capacity building cilmi oo mataqaanaa dadkaas inay aqoon u leeyihiin mataqaanaa arrimaha mataqaanaa evacuationka response recovery arrimahan mataqaanaa dadka waa inay aqoon u leeyihiin takhasus tababar marka ay programka waxa focuskiisa waa training the county government iyo civil society hay'adaha dawliga ah dadka ka socdo shaqaalaha ka socdo iyo county government ayaa la siinayaa cilmi oo qorsheen markuu duufaanka dhaco see looga hortagaa geediga markuu dhaco see loo sameeyay iyo planning iyo qorshe iyo evacuation waxaan all this process so marka waxyaalaha mataqaanaa laga faa'iiday mataqaanaa oo programkan uu keenayo marka waxa waaye general coordination wada shaqayn iyo mataqaanaa isku xirka dawladda iyo hay'adaha dawliga ah iyo donors sifa marka oo disaster ay u dhacaan ay uga hortagi lahaayeen ama ay u yaray lahaayeen good example mataqaanaa Allahu musta'an last year waxaan booqday Ziwani oo soo barakaceen oo guriyihii kulli mataqaanaa macal masaajidihii iyo wixii kulli mataqaanaa oo ay qaadeen mataqaanaa biyo ay qaadeen waxay u soo gureen FTC meel la dhihi marka iyadana mataqaanaa Garissa waxaan haysanay 14 camps IDP camps 14 degma oo soo barakaceen yaa jirtay oo mataqaanaa iskuulada dhex degan marka roobka markuu dhamaaday way gidoomeen waxay ku noqdeen the original mataqaanaa homes ay ku noqdeen laakiin Ziwani meeshada kuma noqon waxay iska jireen FTC na waxaa la sii warning la sii fara badan inay meeshada ku noqdaan ama ay ka guuraan meesha dawladda xarada dawladda oo tababarka lagu sameeyo FTC so as a result maadaama dadka mataqaanaa oo meesha degan Ziwani ay kasoo jeedaan Tana River oo dhankan degan yihiin waxay qasabtay marka in dawladda Tana River lala hadlo oo dadkii mataqaanaa dhul looga qabto dhinaca Tana River tiina qalaf baa ka dhacay dil badan baa ka dhacay qalaf baa ka dhacay 6 qof lagu dilay marka anigii maadaama hay'ad oo mataqaanaa arrimahan oo iyadana ka shaqeyso oo disaster ka shaqeyso aan ahay Garissa Mediation Council waxaan sameeyay marka waxaan u appeal gariyaan email u qoray IOM oo dadkii waana la barakicinayaa meel ay ku noqdaanna ma hayano
marka haddana waxay u baahan yihiin mataqaanaa support bay u baahan yihiin marka email yana qoray report yar soo hagaajinay waan diray kadib sidiiba IOM yay cunna iyo mataqaanaa bacya iyo mataqaanaa gurma degdeg ay u siisay marka ilaa hadda waxaa waaye dadka iska moorhayaano laakiin meesha daad tagtay ilaa hadda dadkii mataqaanaa gurya ma laha deegaan ma laha dadka waa iska tabaaraysan yihiin marka yaro emergency-ga ku jiraan unba cunno yar waxyaalo yar support yar la siiyaa laakiin dib in loo dejiyo mataqaanaa oo recovery-gii weli waa process cilada kaloo jirto waxaa waaye markii arrimahan dhacaano oo la rabo qorsheynta inay ku jirto dadka waxaa la rabaa mataqaanaa higher ground webiga hoostiis markay ku jiraan waxaa la rabaa in loo rabo kor marka meel loo rari ma laha dhul ma laha dhul meel walba waa balood oo qof iska leeyahay waaye khilaaf weyn baa ka jira marka cilada ugu weyn waxaa waaye dadkii haddii duufaan ka dhaco meesha loo rari lahaay waa tahay dadka hadda ziwani marka hore iyo meelaha degnaa hadda meel aad u qabateen oo khilaafka iyo dagaalka dhacay hadda intay ku sugan yihiin waqti xaadirka dadkaas wallahi horta dadka marka hore intuu duufaanka u dhacin oo disaster ay dhacin floods oo kale example ama roob ha noqdo ama biyi kanjan oo December ha noqdaano meel bay degan yihiin good example Bula Punda Bula Sheikh Nyuki Ziwani ilaa Mororo kulli mataqaanaa meel bay iska degan yihiin originally marka duufaan uu jirin ama roob uu jirin laakiin markay dhacaan waxay ku qasbi markay inay u guuraan meel bannaan oo kor inay u guuraan oo kamid ah iskuulada mataqaanaa meelaha banaanadka wanjada lagu ciyaaro ayay u guurayeen marka intii mataqaanaa oo biyihii ay meesha ka engegayeen mas biyihii ay dhammaanayeen meeshay deganayeen meesha marka lagu siinaa temporary support oo hay-adahan iyo mataqaanaa arrimaha mataqaanaa countiga disaster mataqaanaa planning committee waxaana marka qorshe u sameynayeen kadibna markii roobku istaago waxay ku noqonayeen meeshay kasoo guureen wata laakiin Ziwani oo kale meel ay ku guuraan ma rabnaa guriyii kulli daala qaade iskuuladii madarsadii masaajidkii beeri mataqaanaa water kiosk kulli biya qaadeen wash the way waxay u baahan yihiin marka wax long term mataqaanaa planning la dhaho oo qorsheyn mataqaanaa in dib loo dejiyo waa tahay dadkaas oo kale meel ay u guuraan aan jirin meel walbana balood uu yahay xalkooda muxuu noqon karaa sidee wax loogu qaban karaa dadkaas ayaga ah dowladda oo ay ka tirsan yihiin county ahaan iyo dadka ay soo doorteen macnaha baaqaada ku aadan dadkan in ayaga caawitaan loo sameeyo maxay tahay wallahi waa su'aal fiican haddii arrintaas waxay u taallaa national government iyo county government iyo other stakeholder oo qusayso sida Kenya Red Cross iyo other organization ayay u taallaa structuresna waa jiraan oo sidii mataqaanaa maxaa la jiray disaster reduction mataqaanaa committee baa jiraan DSG committee baa jiraan waxay qasbi markaa dawladda inay mataqaanaa la kaashato land ministry ama land commission inay la kaashato oo si fiican loo qorsheeyo dadkan mataqaanaa xal waaro long lasting solution oo loo raadiyo oo mataqaanaa dhul loo raadiyo walakin waa su'aal adag oo dhulkiiba markaa hadda Gaarisa waad ogta ilaa Mudhika ilaa meelo badan ilaa 20 kilometer 50 kilometer dhulku waa nin walba qabsaday balood ganacsi ay noqday marka dib weyn baa ka jira laakiin waxaa fiican marka dawladda inay xil iska saarto iyo culimo diinka iyo dadka ay khusayso oo arrimaha qorshe dheer oo loo yeeshto qorshahan yar oo emergency-ga ah oo isku soo boodka ah oo laga daayo waa tahay aad baad umahadsan tahay haddii aan kusii soconno arrimaha barnaamijka dadka inta badan saamaynta ay ku yeelato markay arrimahan dhacaan waa kuwe saamaynta ugu badan ay ku yeelato dhanka abaaraha barakac oo kale musiibooyinka dhanka biyahoo kale markay dhacaan ma dumarkii ciyaalka mase inta badan dadka ay ku yeelato waa kuwe horta guud ahaan problemka wuxuu badanaa mataqaanaa community uu affect gareeyo community mataqaanaa oo degan webiga jinkiis ama dhinaca Tana River ama dhinaca mataqaanaa Northeastern ha noqoto oo riverine communities ala dhahaa webiga markay mataqaanaa biyo lagu soo daayo Kenjan ay ku soo daahdo oo overflooding uu sameeyo waxay sameeyeen mataqaanaa Bula Sheikh Bula Punda Nyuki Bula Iftiin Ziwani iyo dhinaca kale Mororo Modogo saasoo kale marka dadka saameyso oo biyo ay sameeyaan barakac baa dhacay marka displacement baa dhacay marka geedi baa dhacay marka geedigan markuu dhaco badanaa wuxuu ku dhacaa dumarka iyo ilmaha iyo elderly kuna ku dhacaa waata marka dumarka iyo ciyaalka markay ugu badan yihiin hay'adahan oo kale ciyaalka oo kale mase dumarka waxyaabaha ay u qabtaan maxaa kamid ayaga oo inta badan ay xooga saaraan
الله استعان هرتا نمبر 1 هرتا مركي ريجستريشن كلا سمينا وديوان جليس لك سمينا ودك او اساس ودعانو بلان باجرا قشو اكونت جفرمنت يو متقنا هيدا ويا لاجرا او كهورتغا جرا متقنا وريسبونس يجرا ريسبونس waxaa marka horta dadka in la soo survey lagu soo sameeyo oo information kala soo helo oo mataqaana dadka la diiwaan geliyo marka badana marka dadka la diiwaan gelina household health qofka cid u weyn dumarka la tagad gareeyaa waayo ragii mataqaana ama joogo ama wadinti ama ko joogaana mataqaana dad mas'uul si qaari karo ma oho waa dad marqaana u badayin xilka badana marka hay'adaha waxay aaminaan dumarka household head ee kala dhigaa marka support waxa loo iimaanay ama baacan noqoto ama raashin noqoto hay'adaha waxay keenaano yaa loo dhiibi dumarka listiga ay ku soconaysa oo hor la diiwaan geliyay dumarka loo dhiibi waata ciyaalka kale wax gooni loo sameeyay jiray wallahi waciyaalka waa iska tabeelaysan waad aragtay maandood intii labada bilood oo biyaha duufaanka u socday ilmihii magaalada iska galeen iskuulkii waa mataqaan uu ka halaabay qaar drugs ay galeen qaar tuugay noqdeen wax laakiin special oo consideration oo ilmo gaar loo siinay mala ku weynaa wax loo leeyahay ku yar intelligent waata aad baad mahadsan tahay dhanka waxaan aadaynaa su-aashaasi sidoo kale Cusmaan dadka ugu badan ee saameynta ay ku yeelato arrintan musiibooyinka waa kuwe saameynta ugu badan markuu wax dhaco abaar ay dhacdo mise roobab ay dhacaan daadadkoo kale waxyaalaha dadka ugu badan ee saameynta ay ku yeelato bismillah saameynta horta waxay aad ugu badan tahay ciyaalka yaryar oo 5 jir iyo ka hoose waxay kaloo aad u saameysaa arrimahaas markay dhacaan ayagana dumarka qaasatan iyadoo dumarka xamiliga ah si kuwa nuujiyaan oo ciyaalka wataan si allaba waa qaybta idiloo bini'aadanka markii la isku soo koobo dadka aad u liitaan waa ciyaalka iyo dumarka arrimahaas aad u saameeyaan inkastoo hadda shay kastaba uu kala duwan yahay shayga musiibada dhacaysa ku xiran tahay meesha talo laakiin markaad isku soo duubto khaasatan dumarka ciyaalka aad u saameysaa lacala xagga haddii la fiiriyo khilaafaadka markay dhacdo qaybta ay aad u saameysana waa dhalinyarada khaasatan ragga waayo ayagaa loo dirayaa dagaalaha ayagaa arrimaha maaragtay meelaha wax kasoo dhacayn loo dirayaa soo markii laisku barbar dhigo abaarta iyo daadka iyo arrimahaas oo maaragtay musiibooyinka ah laakiin maslaxada iska markaad fiiriso dumarka iyo ciyaalka ay ragga aad u saameynaysaa laakiin dagaal xaggiisa markay noqoto dhalinyarada iyo khaasatan aad u saameysay iyo ragga weyn waa tahay hay'adda lanqeyrta cas oo adiga ka tirsan tahay arrimahaas waxyaabaha ay ka qabato maxaa ka mid ah wallahi arrimo badan bay horta ka qabataa lanqeyrta cas waa county kasta oo wadankan way ku taallaa arrimooyin badan oo isbahjir bay ka qabataa khaasatan arrimaha oo musiibooyinka markay dhacaan horta waa lanqeyrta cas waa midda ugu hore oo meesha laga helayo kaba soo qaad arrimaha accident markay dhacaan mise hataa dagaalaha markay dhacaan lanqeyrta cas waa qaybta koowaad ee meesha ka qayb qaadanayso qofkii oo lacala qofka meydka anaga kuma shaqeyn dawladii waxaas ku shaqeyn laakiin dadka oo jireen waxay gaaraan lanqeyrta cas ayaga maartay toos u soo qaadayeen oo maartay meelaha ugu targelinayeen marka lanqeyrta cas waxay aad ugu soo horeysaa ayab kala sooc ma laha qayb kasta oo dagaal hadduu jiro mise wax saameeyo qof kastaba ayaga dhexdhexaad bay ka yihiin lacala laba qabiil baa isdagaaleen mise maaragtay laba shay baa isqalaateen ayada baray ka ahaanaysaa qofka alle qofka dhaawac oo waxa gaara ay qaadaysaa meeshii lagu caawin lahaa ay tolkeen gelaysaa laakiin meel kastana iskagama ordayso kuma bilaabanayso ilaa marka hore ay dawladda ka hesho go ahead ama lagu horgudo la dhaho maaragtay lanqeyrta cas ale leeyahay waxaa samayn kartay meeshan ka sameeya waayo dawladda madaxa sare iskale caafimaadka xaggiisa waxay ka samaysaa oo maaragtay waqtiga abaaraha ay jiraan tuulooyinka aad u rafaadsan oo isbitaalka aan jirin maaragtay oo maaragtay laakiin dadka aad uga xanuunsan daaweyn ku baahan yihiin ay maaragtay caawimaad ka sameeyaan oo maaragtay arrimaha daawada xaggeeda ay geeyaan meelaha khaasatan ay waxyaalaha ka sameeyaanna waa inay marka hore reportka dawladda ay soo gudbisay talaabaqaad ku sameynayeen waayo way la xiriirayeen qaybta isbitaalka lala xiriiraya caafimaadka qaybta caafimaadka lala xiriiraya qaybtaas ayaga ayaa maaragtay ku siinaysaa wadadii la marayo iyo inta qof maaragtay la caawiyo xagga biyaha ayaga naftooda waxyaalo badan bay ka sameeyaan
fatahaadka markuu dhaco meelihii biyaha laga cabaayo dadku way ka wada halaabayeen meelihii kale oo aan la geli karin baa jirta abaaraha markay dhacaan meelo waxaa jirta maaragtay u baahan in biyaha xaggooda wax laga qabto ceelasha oo kale waqtiga abaaraha kuleylka markay jiraan meelo waxaa jirta xoolaha ay ku guurayeen oo ay degaayeen oo ceelasha camal naadka la raba inay caawimaad laga sameeyo wixii codsi keensado mise wixii aan u aragnay maaragtay aada u dhibaataysan yahay oo wax looga qaban karo way ka qabanaysaa hadda waxaan u malaynayaa 2 usbuuc lasoo dhaafay meel wajeer ay dhahaan handaaki meel waxaa jirta aada u rafaaqatay aada u rafaaqsaneyd qaybta caswaa la diray waxaa la dhahay ka assessment kusoo sameeya xaaladdaa la ogaaday ilaa kun qoys raashinkoodaa loo diray intaasoo ceel oo hadda waxaa jirtaa lasoo diyaargaroobo la qaybta casa kasoo shaqaysay oo rabo abaarahan soo socdaan ama haddada lagu jirabo maarata wax ka qabato dadkii maarata sidii ay ku caawina falkeeda ay gashay laakiin wax ayada intay mashruuc iskala umaato toos ay dadweynaha oo gudbinaysa ma aha ilaa waa ilaa laantii dowladda xaggeeda ee loogu talagalay inay hor kacdo ay ku xiriirsadaan biyaha hadday tahay qaybta biyaha ayaa madaxa nooy ayagaan la siinaya intan oo ceel baa loo baahan in la dayactiro intan oo meel oo biyo laga cabaaya maarata shaygan u baahan waa inaan ayaga markaan soo dhigno caafimaadka sidii oo kale shay kastoo meesha ka socda waa inay maarata raashiid nafteeda markay noqoto laanta special programs ayaan u dhiibaynaa arrintan waata aad baad umahadsan tahay haddii dhankaada aan eedo arrimahan musiibooyinku way soo lalaabtaan waxyaa marar badanna way dhacaan casharo laga bartay ma jiraan oo haatan lagu dhaqmo maya ma jiraan kale un waxaa waaye alla markay wax dhacaan unba dowladda iyo hay-adaha ayay gurima degdeg sameeyaan laakiin wax long term plan oo yaallo oo mataqaanaa dhaqaala meel loo dhigay iyo mataqaanaa qorshe u yaallo ma laha laakiin waddanka Kenya ahaan national level disaster reduction plan wuu jiraa hadda mataqaanaa stakeholderski dadkii mataqaanaa oo wax ka qaban lahay hadda tababar iyo waxyaalaha loo sameynaya qorshoodin markii runta laga hadlo bilsoom baan ku jirnaa ilaa allah haddaan ka cabsano qorshe fara badan policies fara badan waa yaallaan meel waa yaallaan laakiin dhaqaala ma leh wax dhaqaala meel u yaallo ma laha shayna hadduu dhaqaala meel u yaallin si walba uu fiican yahay qoraal walba u yaho dhibkii haddaa dhac maxaad ka qabanay markuu dhibka dhaco unbaa meeshan badanaa un mataqaanaa un laisku soo ordaa shirar la galaa intay wax ka qabanana marka dhibka ugu weyn oo jiro waxaa waaye lack of mataqaanaa long term planning iyo resource waata aad baad umahadsan tahay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad inoo dhegaysanaysaan barqa wacan oo wanaagsan ayaan hawada inaga leenahay star fm codka gobolka qoyi bari ayaa la socotaan waa tahay kulan wacana wanaagsan mar kale star fm codka gobolka qoyi bari aad la socotaan barnaamijkii khaaska ahaa ama markaasi aan ku eegaynay arrimaha musiibooyinka iyo ka hortagooda iyo sidii loo yarayn lahaa ama markaasi maarayn loogu samayn lahaa ayaan ku guda jirnaa oo ay taabagelisay hay-adda socdaalka adduunka ee loo soo gaabiyo IOM si toosa barnaamijka waxaad kala socotaan idaacadda star fm codka gobolka qoyi bari magaalada Gaarisa stuudiyaha labaad ayuuna barnaamijka inaga imaanayaa maxamed cusmaan iyo aadan cusmaan ayaa barnaamijka marti inoogu ah waxaan haatan aan aadaynaa anagoo qaybihii dambe ee barnaamijka soo gaarnay haddii aan ku bilaabo dhanka maxamed cusmaan dadka maxaa la gudboon xilliyada ay jiraan fatahaadoo kale ama roobabkoo kale inay sameeyaan bismillaahi dadka maxaa lagu boorajinaya horta midda koobaad arrimahaas markay wacyigelinta ay helaan inay si toos uga soo baxaan meelaha oo daadadka iyo waxa ay ka dhacaan aada iyo aad baa lagu boorajinaya dadka inay meelaha kor aadaan oo meel ay ku nabadgelayeen ay degaan midda labaad biyaha naftooda waxaa loo baahan yahay dadweynaha roob baa dhacaya biyaa socdaan tagogaa biyo wadaan webigu ku shubaya dadka inay biyaha dhex soconin ciyaalka yaryar maamooyinka macal dadka weyn hataa in maaragtay dadka ay ka joogsadaan waqtiga biyaha ay socdaan in badan daadadka socdaan ay dadka waxay ka raadiyaan maaragtay inay dhex maraan soo socdaan sidaa la-aaligeed bay maarata musiibooyin badan ooga soo baxaan hataa dadka gawaarida wataan waxaa loo baahan yahay biyaha markay socdaan inay ka istaagaan istaaga waxaa weeye muhiimka meesha god iyo meesha kale kulli waad kala fahmaysaa markay biyaha socdaan laakiin wax kasta wuu isku qasan yahay marka gaarigii baa biyaha kaa qaadi karaa gaarigii baa god kaaga dhici karaa
dadkii baa biyaha ku dhici karaa marka arrimahan waxaa aad iyo aad looga baahan yahay dadka maaragtay inay taxadar ka sameeyaan markay biyaha socdaan qofka haddiiba danta ay ku qasabto inuu socdona waxaa muhiim u ah inuu shay u isticmaalo oo iskaga fiiriyo biyaha ilaa intay qiyaastooda dheyihiin camal qofka hadduu wato bise qori dheer uu qaato camal uu iska fiiriyo meeshii god ah iyo meeshii kale waayo haddiiba aad ka istaagi karin oo muddo aad siin karin biyaha intay ku dhaafayiin laakiin aad rabto weli inaad dhex socoto danta ku haysaba adaad garanaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay shay dheer aa isticmaasho oo meeshii god iyo meeshii kaloo aad mari karto kala tusinayso waxaa kaloo dadweynaha loo sheegayaa roobabka weyn markay jiraan hadda habeen hore oo kale gaarsa khaasatan geesas waxaa jira roob aad weyn ooga dhacay roobka marka duufaan buu watay dabeyl aad u xoog badan oo derbiyaha dumisay oo intaasoo shay samaysay waktigaas oo kale stiimarka ilaa iska damiso stiimarka biyaha markay istaabtaan khatartay leeyihin waa la garanayaa marka shayga aad u muhiimsan waxaa weeye inaad stiimarka camal iska damiso waa muddo yar oo roobka uu dhacayo roobkaas markii uu dhaafana waxay dhici kartaa arrintaas si caadin aa iska noqotay gawaarida parkinka naftooda la sameynayo meelaha parkinka lagu sameynayo meelaha biyomarinta in lagala fogaado haddii meel oo tog agtiisa ah lacala gaari parking aad dhigato oad ka tagto dhibkeeda weelada biyaha way soo badanayin toga wuu sii go-ayaa marka waa intaasoo gaariga uu kaa tago soo muhiimka waxaa weeye marka u hore arrimahan ay dhicin aad taxadar fiican aad samayso oo meel fog aad gaarto camal ahaan waxaa kale oo ayaga muhiimka oo dadka loo sheegayaa meelo waxaad arkaysaa geeda stimer ku yaalaan stimerka wuu iska dhib badan yahay waa geeda waaweyn oo maaragtay haddii qof uu kusoo kor dhaco guri hataa jibinaya dadkii wuu jibinaya marka daadadka ay socdaan waad garanaysaa carrada kulli bay tegaysaa geedkii wuu iska soo jiicmaya mise wuu soo dhici karaaba qof buu kusoo dhici karaa guri buu kusoo dhici karaa marka in laga fogaado meelaha agtooda aad iyo aad ayaa maaragtay dadka loogu boori jira ayagana hadda laba roob oo lasoo dhaafeen oo kale dhibaatooyin weyn bay aad noogu keeneen saameyntooda saa'id bay ahayd shayga muhiimka oo aad iyo aad dadka loogu taxgelinayo waxaa weeye inay maaragtay gaari aan lagu dhex wadin roob socdo dadna ay dhex soconin oo maaragtay laiska ilaaliyay meelaha oo daadadka aad u badan midda kale dadka waxaan ku boorajinaynaa inay fmyaasha aad u dhegeystaan waayo meelaha warka laiska gaarsiinaya fmyaasha ka mid ah star f m ama warsan f m ama si ay noqotay waa fmyaashan oo localska weliba aad iyo aad meelaha warka laisku gaarsiiyay meelahaas oo kale ka mid ah dadkina aad u isticmaalaan meelahaas ayaa maarta waqtiyaashan oo arrimahan ay jiraan yaan aad ugu boorijinaya waa tahay aad baad umahadsan tahay dhanka waxaan aadayaa aadan cusmaan aadan maxamed cusmaan dhankiisaan aadayaa waxaan arinta dhanka beeraleydoo kale xiliyada ay dhacaan fatahaadaha biyaha oo kale dhibaato badan baa kasoo gaartaa ayaga ahaan baaqaada ku aadan ama aada u diraysaan inay taxadar sameeyaan muxuu yahay allah mustacaan horta biyahan mataqaanaa oo kanjan ay soo daynaan oo sanad walba december dhacaano communityga waa ay la qabsadeen waa ay barteen waqtigata way garanayin marka waxaa fiican marka dad binaadam baa nahay ilaahay aqliguna siiye in lis qorsheeyo oo plan la sameeyo oo marka tuseme beeraha markay la abuura oo kale december markay soo dhawaato oo kale oo zaa'id isku sii halaynin oo dadka is qorsheeyaan oo mataqaanaa abuur ay samaynin oo markii december ay dhamaato kadib march april rain oo marka qofka mataqaana plan uu sameeyo marka beerihiisa u abuurto waayo intaasoo sano ayaa mataqaana arrimahan soo noqnoqonayna ay dhacaayeen oo mataqaana beerihii mataqaana ay floodka ay haaqayeen asadkii kulli ka kac injinkii ka kac qofkii oo shalay mataqaana oo milyaneerka ahay oo intaasoo asad lahay xoolihiisii kulli mataqaana zero wuxuu soo istaaga mataqaana poor buu soo istaagay miskiin buu soo istaagay marka midda kale waxaan mataqaana dowladda idina ku boorin lahay mataqaana in arrimahan mataqaana oo sanad walba soo noqnoqdo oo beeraleyda arrimahooda mataqaana idina qorshe long term plan loo sameeyo oo sifa mataqaana riskiga mataqaana oo looga yareeyo to minimize the risk of the floods marka qorshe loo yeelo dowladdii mataqaana iyo hay'adihii inay beeraleyda ay qorshe u yeelaan oo alternative source of income oo kale loo hagaajiyo oo beerahan moogi mataqaana ama mataqaana meelo kale kor loo raro oo mataqaana engine loo saaro ama ceel loo qodo oo mataqaana plan kale loo sameeyo waayo every year wixii way soo noqnoqonayeen waa dadkii maskiin bay sii noqonayeen waayo floodskii roobka markuu imaado way haaqayeen
webigii marka soo fataawa oo kenjam lasoo daayo way haaqayn marka community waxaa waaye problem every year problem ay ku jiraan marka waxaa fiican community in is qorshay oo plan u yeeshto waa tahay aad baad umahadsan tahay haya dhankaad waxaan raacinayaa sida walaalkay sheekh maxamed waktigan hadda roobkan hadda aan sugayna oo march april may la dhaho waa gubaan sugayna hadda oo madaxiisa hore lagu bilowday laakiin saadaalayaasha siday sheegeen guban inuu yaraan doono marka shayga koowaad ee muhiim waxaa weeye wixii alla wixii roob oo gacanta galo mise wixii biyo socdaan oo la helo aad iyo aad inkastoo hadda waktiga hadda haddii la sameeyo waa la sameeyey laakiin haddii aan la sameynin waa laga dib dhacay waxaa ficnaan lahayd biyaha si lagu keedan la farkeed in la sameeyo biyo badan baa kusoo gela hadda maalin hore tagweyne oo kale biyo halkaas ka keenay ilaa iyo iyo banaanay markaad aragto waad yaabaysa haddii lacalla ilaa 5 dhaam la heli lahaa oo biyaha lagu kaydiyo dadka lagu barbixi lahaa si fiican maba ahee webiga Tana naftiisa beeraha aad baa lagu dhib qabaa laakiin haddii la heli lahaa war aad u weyn oo ilaa iyo 100 ilaa 200 la heli lahaa biyaha lagu kaydin lahaa iyada nafteeda flaarska badan nafteeda dhibkeeda u yaraan lahaa hadda shalayta miyaa darad waxaan arkaa webiga Ribadawa Mandera ku yaal oo biyo keena hore uu iska geeyna webi laakiin hadda biyo keena biyaha marka waa loo baahan baadida u baahan marka shayga koobaad waxaa weeye dadka maalgelinta sameynayeen inay horta dadku hagaajiyaan meel biyo lagu kaydiyo oo fiican oo waliba qiyaas inta muddo 6 bilood ilaa iyo sanad maartay dadka ay deeqayeen waa shay aad muhiim u ah maartay loo sameeyo dadweynaha waa tahay aad baad mahadsantihiin maxamed cusmaan iyo sidoo kale aadan cusmaan oo barnaamijka maanta qayb ka ah laga qayb qaadanaya isla markaana ay maalgelisay ama markaasi taabagelisay hay'adda IOM iyo sidoo kale khubaro markaasi ayada ay kaashanayso barnaamijku wuxuu si toos ah inaga imanaya idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan gaarnay dhanka dhageystayaasha ayaan haatan aadaynaa anaguna telefoonyada u furi doona si ay barnaamijka uga soo qayb qaataan su'aalahooda ay doonayaan ay martida u weydiiyaan telefoonka sida tooska u soo wici kartaan waa abar 796 68 23 haddii aan mar kale ku celiyo waa abar 796 68 ayaa si toos u soo wici kartaa wixii su'aalaha qabtana aad u weydiin kartaa martida maanta halkan inala joogta dhanka kale waxaan markaasi aan ka soo qayb qaadan kartaa dhanka SMS-ka waa abar 7 93 konton waa markaasi 35 ayaad soo wici kartaa dhegeystaha qad ku jira ayaan fursad siinaynaa halo waa tahay dhegeystahaasi qadka ayuu dib oga laabtay waxaan leenahay mar kale dib u soo beegso qadka ayaa ka heliyay meel walba joogtaan iyo si walba inooga jaan qaadaysaan Star FM codka gobolka Waqooyi Bari naga socotaan barnaamijkii waxaan ku guda jirnaa aan oga hadlaynaa arrimaha musiibooyinka iyo raynta iyo sidoo kale ka hortagga qatarta ay sameyn karto waxaad soo wici kartaa abar 796 68 ayaad barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaa dhanka SMS-ka ama fariimaha gaaban waxaad ku soo diri kartaa abar 796 23 35 ayaad soo wici kartaa meel walba joogtaan waa SMS-ka ayaa ku soo diri kartaa meel walba joogtaan si walba aad noola jaan qaadaysaan barqa wacan wanaagsan ayaan hawada naga leenahay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari la socotaan barnaamijkan waa barnaamij ay taabagelisay hay'adda IOM markaasi ayada arrimaha socdaalka adduunka waxaana barnaamijka qayb inooga ah saaxiiba hay'adda halkan ku matalo oo ah maxamed cusmaan iyo sidoo kale aadan cusmaan oo barnaamijka ayuu marti inoogu ah meel walba joogtaan iyo si walba aad noola jaan qaadaysaan waxaan hawada inaga leenahay barqa wacan oo wanaagsan تغلغل في دمي وعظامي يا رب بارك في الضياغم كلهم بارك عليهم حفلة الإتمام ولوالدينا يوم لوق يا ربنا تجل وقت
وهذا كل وعنا ونكسن مركلة لأنك وحن آذينا دقيستياش وعيبو فريمها جابان ما فرين تجابان نسوق جارسية دقيستهن وحولي هاي مجاعيبو وعبد الله مهد وحن جوجا مجالة جارسة وحن مرتدى ويدين لها بردهاي أرنتا وحولي هاي saamaynta ay yeelanaysa arrimahaas waa waxyaabo badan baa jira wuxuu yiray waxaan doonayaa inaan weydiiyo beeraleydoo kale maxay yihiin talooyinka aad siinaysaan ayuu leeyahay bismillahi rahmaani rahiim waxay ku xirantahay horta shayga beeraleyda ay u baahan yihiin beeraleyda xaggooda haddii la dhaho intaas oo hay-ad macal dowladda caawimaad aada u badan ayaa loo sameynayaa waxaan ka hadlaynaa arrimaha musiibooyinka markay dhacaan kaba soo qaad beeraley haddii la dhaho daadka xaggiisaan ka hadlaynaa horta wacgelin baan sameynaa ka hor inta daadka dhicin beeraleyda waa loo sheegaa beeraha laga soo baxo qalabkana ha lagala soo baxo lacala shayga markuu dhaco kadib waxsiisma hadday noqoto beer kasta waxay ku xiranta horta wixii ay codsatay ay u baahan tahay iyo sida kale beerahaas ay u kala riidan yihiin qof waxaa jirta musiibada iyo arrimahan ay ku imaanayeen laakiin alxamdulilah asaga iska faayo oo dantiisa iska qabsan karo iyo qof baahano oo arrimaha u baahan codsiyaashan hadda khaasatan kenya reerkoos markaan codsiyaasha waan qaadnaa waan fiirinaa maxaan ka qaban karnaa toos baa marka beertu aadaynaa wixii aan ku caawin karno baybasha ha noqdaan injimaha wixii aan u samayn karna ha noqdaan haddii wax aan maaragtay dayagelin u samaynayno abuur haddii ay u baahan yihiin ayaga naftooda waan u samaynayna laakiin waxaa kulli waxaa kasii muhiimsan warka horaan loo dhigaa horta beeraley shayaashiina muhiimka meesha kala soo baxa dadkiina shaqaalaha meesha ay ku harin waayo waqti badan markay arrimaha dhacaan waxaanu soo gaarnaa khabarad telefoonyada noo soo dhacayay waxaan u baahannahay in la caawiyo door baan u baahannahay dad baa beeraha nooga xiran iyo wax waastaan iyo laakiin in taas ayada ka hortag la sameeyo ayaan aada horta ugu dadka maaragtay kula dadaalnaa lacalla hadday dhacdana wixii caawimaad oo ka qaban karna waan la qabanaynaa intaasoo beer hadda waxaa jirta aan mashruucyaal la sameynay barkood hadda wayna sugayna aan la sameyno marka reerkoos laxnamaba ahee dowladda iyo laamaha kaloo la shaqeeyaan dowladda kulli caawimaadkaas maaragtay way sameeyaan intaasoo mashruucoo la sameeyaa laakiin shayga muhiimka waxaa weeyo wixii dhibaato oo beerta u imaanayso in anaga nafta annaga kasii taxadiran meesha ku jirta maxaa ka mid ah sharci ahaan waddanka waxaa meel u yaashaa qofka haddii webiga jiinkiisa beer ka sameeya oo warraba beerta inuu fasho ilaa iyo 30 mitir miya mise 50 mitir xisaab intan webiga inaad kasoo durugto webiga biyaha meesha marayni meesha beertaada ka bilaabaysa dhulna u dhexeeyaa la rabaa dhulka asaga marka aad geedo ku tallaashaa la rabaa horaan haddii badadii meesha ka baxdo ilaahay ugu talagalay aad ka jartay oo aad abuurtay hadda kadib inaad taa kasoo baxdo loo baahan marka geeda ku tallaal aad samayso sufo webigii iyo beerta dhexdooda maaragtay qashina uu ka baxo caradin ay isku reebato hadduu daad hadduu maado meelaha oo beeraha hadda waxaa jirtaan daadka saas kale usoo gelayay jawaamo oo kale loo dhiibaya dadka waxaa la dhahay mar kastaba inaad musaacado iska weydsata maamood adiga naftaada xisaab inaad ku dartaa loo baahan annaga oo kale hay-adda intaasoo jawaan ilaa 3,000 oo jawaamaan beeraleyda u qaybinay marka beeraleydu waxay sameynayaan carray ku guraan jawaamihii meelihii alla meelihii webigii uu kasoo jibinayay ayay iskaga xiraayeen kuwa barkood maaragtay waxay sameeyeen dayactar bay ku sameeyeen kanaalkii beeraha waraabinaya kor baa loo dhisay macal ceelkii ayaa kor loo dhisay in daadka ka kore maaragtay u gelayin biyaha meel dheer markii ayay gaarayeen kuwa barkood nidaamka hore ee beeraha loo falnaa way ka tageen kanaal wuxuu jiri jiray meel baa laga hagaajinayaa in yar saasaa loo wadaaya marka carro iska noqonaya inta kale baabiyaal iyo wax baa loo bedelay marka biyahan ilaa 2 kilomitir ayay ka bilaabanaysaa marka meeshii biyaha kasoo baxayeen ilaa ay beerta meesha ka waraabsanaysa 2 kilometers from the river ayaa maaragtay beerta ka waraabsanaysaa marka mashruucayaashu way isbedelayaan anaga waxaan aad iyo aad dadka ugu sheegaynaa inay wixii war oo isgaarsiin horta ay noo soo gudbiyaan dowladdana ay u sheegaan wixii qoraalna officialnimo ay loogu soo address gareeyaan marka wixii aan wax kala qaban karnana waan kala qabanaynaa wixii kalena haddee qof kale waan ku advice gareynaa maaragtay inaan u dirno insha allah waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaan haatan aan eegayaa dhegeystaha ugu dambeeya ee dhanka fariinta ee soo gaarsiiyey wuxuu leeyahay waa cabdiqaadir xasan waxaan joogaa buu dhahay gobolka waqooyi bari ayuu yidhi
intaasoo kusoo koobay halkuu sii jooga kale noomuu sheegin. wuxuu leeyahay waxaan doonayaa ani inaan wax aan ka weydiiyo martida arrimaha dagaalada oo soomaalida inta badan kusoo lalaabto maxay yihiin baaqa ku aadan ee dadka loo diraayo hay-adahana arrimahaas maxay yihiin waxyaabaha ay ka qabtaan buu leeyahay. bismillah. arrimaha horta oo qalafaadka mataqaanaa gobolka mataqaanaa waqooyi bari gaar ahaan Garissa County zaid bay ugu dhacaan. badanana waxaa keena mataqaanaa dhaqaalihii mataqaanaa ama mataqaanaa maxaa la jiray daaqsinkii ama biyihii oo yaraaday. waxyaalaha badana oo keena qalafka waa kaas. midda kale waxaa keena xaduudyaha mataqaanaa oo cadaanka u hagaajiyay the colonial period. sub county balambala kan xuduud fara badan baa la hagaajiyey. marka midiina waxay keentay mataqaanaa deegaan walba iyo qoys walba meel degan inay meeshii ay dhahaan areadan anuka iska leh wixii coos iyo biyo iyo mataqaanaa oo dhaqaale kasoo bax anuka iska leh dowladda ka imaata iyo mataqaanaa roob kenyaaba. marka waxaan dadweynaha ku boorin lahayn maadaama dad islaam naho oo bil ramadaan lagu jiro midda hore mataqaanaa ilaahay cabsidiisa iyo sharciga mataqaanaa diinta kitaabka inaan ku dhaqanno oo mataqaanaa nin walba mataqaanaa xaquuqda oo qofka kale xaquuqdiisa la iska ilaaliyo. marka midda kalena mataqaanaa waxaa jirta for example hadda waxaan qaadanaynaa Isiolo County waxay leeyihin mataqaanaa grazing land zones oo grazing land mataqaanaa oo la diyaariyay dowladda mataqaanaa oo dhulka mar hore la habeeyaa jiraa. grazingkan maxaa dhulkii baa la kala gooyay la qaybiyey oo daaqsintii qayb 4 meel baa loo qaybiyey. mid waxaa weeye waxaa la daaqaa 4 bilood January ilaa March, qaybta kale ilaa July, qaybta kale ilaa August, qaybta kale ilaa December. dhulka waa la maariyey waa la qorsheeyey waana silib baa lagu wareejiyey. waa hanaan mataqaanaa dowladda ay samaysay oo grazing mataqaanaa pasture land oo la diyaariyey. marka iyaka qalafkooda buuqooda iska yariinba waayo waxooda waa qorshaysteen. laakiin gobolkayna Garissa County markaad imaatid tii ma jirto. waa iska mataqaanaa no man's land, nin walba iska free waay. waa un iska socdaa cid walba mataqaanaa meeshii coos yar jiro waa iska imaanay. marka waxay keenaysaa marka badanaa dagaalo inay dhacaan. marka waxaan dadweynaha dowladda aan ku boorin lahayn county iyo national government ba in oo grazing land system oo sida Isiolo County oo la sameeyo oo pasture mataqaanaa dhulka oo mataqaanaa oo reer guurayga oo loo qorsheeyo oo sifa mataqaanaa deer iyo nidaamkan kulli abaaraha markay jiraan oo mataqaanaa dadka daaqsan oo helaan wixiina mataqaanaa oo qorshe ay u lahaadaan. waa tahay aad baad mahadsan tahay aadan cusmaan maxamed cusmaan waa mahadsan tahay. waxaan haatan aan gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. waxaan doonayaa labadiina inaan siiyo hal fursad oo ah gabagabada waxyaabaha aad baaqa ee aad diraysaan muxuu yahay. waxaan ka bilaabayaa dhanka aadan soo dhow. bismillaah. aniga horta waxaan baaq u dirayaa dadweynaha reer waqooyi bari. hawa ahaan markii la dhaho annaga waddanka kale Kenya waan ka duwannahay. waqtiyaal yar ayaan roobka annaga ku xisaabtanaa. bishii 11 bishii 12 sanadkii iyo bishii 3 iyo 4 xisaabta say tahay long range iyo short range baa waa dayrta iyo guge waqtiyaasha kala sheego. xaaladda oo hawada isbedelkana si toos ah inaan la socono waa muhiim. waxyaalo badan oo waxaa jirta aan dhagaha ka qabsano oo aan dhahno siduu ilaahay ka dhigay noqonaysaa. waa runtaa dad islaam aan nahay oo diintaanadii ilaahaygaana waan aaminsanahay. laakiin waxyaalo dhicitaan oo dhaar iyo habeen baa la kulminaa jirta. marka inaad indhaha ka qabsatana maaha. waxaan dadka ku foorajinaynaa maaragtay xaaladaas ayada aad loola socdo la iska ogaado. khilaafooyinka iyo dhibaatooyinka ay keenayeenna aad iyo aad maaragtay iskaga yareeya. dadka waa dad islaam ah. nolosha adduunka uma maanta lagu joogaa. marka sidii uun maaragtay aan maaragtay arrimahaas aan kahortag u samayn lahayn halkeed aan garan. waqti kastaba yay noqonin gaargaar inaan maaragtay caawano aan dhahno gaargaar baan u baahan. bal annaga aan isku dayno inaan maaragtay wixii intuuna soo gaarin aan maaragtay tallaabo qaad ka samayno. kahortag aan samayno. kahortagaan aad iyo aad dadka maaragtay aan ugu boojinaya. waa tahay. كل نفتي وحن كسوق بجوي لهاي نورث إيسترن ريجون وحن رحت حدود لنا سوماليا دينا على سوماليا ما تقن حدود كودن كسوماليا وكينيا ما تقنا قلاف بدن بكجرا أو ما تقنا
ha noqoto mataqaanaa xuduudkii oo mar walba xiran ama ha noqoto mataqaanaa dagaal dhinaca kale ka imaado oo dhinaca dhalinyarada marka saameyn badan bay mataqaanaa ay gobolkayna ku leedahay arrimaha nabadgelyada mataqaanaa horta in xil iska saaro waxaa jirtay mataqaanaa peace committee structure oo county commissioner la shaqeeyaano marka guddigaas oo mataqaanaa khilaafaadka ka shaqeeyaan iyo hay-adaha ayakana khilaafka nabadgelyada ka shaqeeyaano inay mataqaanaa arrimaha mataqaanaa peaceka ee mataqaanaa xooga ay saaraano oo nabadgelyada laga shaqeeyo meel walba oo la joogo midda kale on ka hadlay waxaa waaye dhalinyaradii gobolka waqooyi bare boqolkiiba mataqaanaa 70 iskuullada iyo jaamacada iyo kolejyaasha markay kasoo baxaano shaqo ma leh marka shaqooyinkiina mataqaana waxay noqdeen mataqaanaa dhalinyarada ma shaqaystaano shaqo abuur ma sameeyaano wax skill mataqaana development oo mataqaana waxbarasho gacantooda fursad inay baratona diyaar u maaha shaqooyin waxay iska raadinayaan mataqaanaa oo white collar jobs la dhaho oo xafiisya laga shaqaynay marka middan waxay saamaysay marka in dhalinyaro badan mataqaana dibadaha mataqaana risk ay noloshooda khatar geliyaan oo dhoofitaan iyo mataqaanaa iyo wax badan ay dhexgalaan marka waxaan mataqaanaa ku boorin lahayn mataqaanaa dadweynihii horta dhalinyaradoodii inay mataqaanaa xirfad ay baraan oo skills ay bartaan oo dhalinyaradii sifa shaqa abuur ay samaystaan oo iskooda u shaqaystaan midda kale waan la soconaa hay'adihii faraha badnay oo ilaa 1991 ilaa had ama qaxootiyada ha noqdo ama deegaanada mataqaanaa host community ha noqdaano oo support ka siinayeen Trump waa gooy digniin adigoo lagu siinaa mataqaanaa boqolaal hay'ad iyo shaqaale fara badan oo dhalinyarada shaqaynayeen shaqooyinkooda ku waayeen marka middan oo hadda walaalkeena Cusmaan uu ka dhawaajiyay oo mataqaanaa hay'adaha wax laga sugay ingiriiska wuxuu dhahaa dependent syndrome oo mataqaanaa un dad wax laga sugay gacan dad un wax laga sugay in la iska daayo oo la isku tashto oo arrimaha mataqaanaa floods ka noqdaano arrimaha abaaraha noqdaano waxaan kulli waxaa lagu hortay karaa dadkii aqoon inay leeyihiin dadkii shaqo abuur inay leeyihiin inay iskooda u shaqaysan karaan marka taasna waa boorina insha allah waa tahay aad baad mahadsantihiin waxay kala hayeen maxamed cusmaan iyo sidoo kale aadan cusmaan oo ayagu hay-adda IOM maanta halkan ku mathalaya ama programkan markaasi dhankooda halkan u joogay way ku mahadsan yihiin qabalkooda barnaamijka waana uga mahad celinaynaa intaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii oo aad kala socoteen idaacadda stafm codka gobolka waqooyi bari barnaamijka wuxuu si toos inaga imaanaya stuudiyaha labaad idaacadda ay ku leedahay magaalada Tangaarisa intaan kulmayno barnaamijkan kiisa xigo waxaan inaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh